soo kicinba 24 hour qofkii mar hadii uu qalad ka dhaco oo bilaadan qofku uu qaldami karaa laakiin qof mar iyo mar labaad mar saddexaad mar dameerka haduu cid dhibo ama السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي واحد صاحب يا الملك استجوبتان برت نقدر داون السوا بارد في الشيال عاو حيلة شوقة شلاق وينا أبوانكي وينا يعني عبد الرحمن قلب كان وورينا خصوصا وين برنامج عبد الرحمن سولو صح aad waa mahadsantahay waan dhawahay barnaamijkana waa ku dhawahay oo mahadsantahay mar labaad iyo mar saddexaad way saaxibaad sidoo kale waa mahadsantahay bal maxaad caawa ugu tala gashay Barud family waxyaabaha nagu soo tala gashay maxaa kamid ah wallahi kulli dekadii soo dhigay taawada qabat laakiin sani weyn oo la qabtay hadda tay kulli waa la soo furtaa iska samastar waxa laala iyo wixii su'aalaad weydiisan ugu tala galay dadka inaan ka jawaabo diyaar baan weeya bal ugu horeyn magacan qalab jaan bal muxuu ku baxaysaa qalab jaan waa saaxiib magacaasi kulli waa su'aasha ugu badan la weydiiyo isaga iga timaada kulli magacaniga ii gaar ma aha magacaniga gaar ahaan la yiraahdo waa magac ay la wadaagaan dad aad u tiro badan oo aan isku family nahay waana magacan abtirsim ahaan galo awoogay la oran jiray sifa oo igu baxayna waan ka xanaaqi jiray markii hore demago waad aragtaa waa magac iska yar ama ganacsa ka kan ninka soo imkaan ku caana maalo de magac kale Cabdiraxmaan baa idima taqaanin ku baxay imka isaga ay baxay sax markaa magacu sidaan ugu xanaaqi jiray unba ilaa malcaamadii biga soo raacay sidii baa magacii kale lagu ilaaway markaa saas magacu igu baxay waa magac family marka imka magaci wuxuu noqday magac dhaxal gala tawakayga caadiga ah magac kale soo maaqan sax walaayahay waxaad kale ka mid tahay jalayaasha Soomaaliyeed ee ugu fiican sidoo kale daayar soo koraysa kale dhalinyarad sidoo jirbaad galay Soomaa ma gaarin laakiin waa sii sigaya malaha kale waa iska sax waa sii sigaysayo waxa tahay afkii ma garanaysa Soomaaliga ama afkii hooyo maadaama tahay jira bal maxaad ka haysaase dhalinyarta dambe afkii hore iyo afkan bal dhinac dhigaaw wallahi horta anu miino ku dhashay kullay noloshaydii qaybo badan oo kamid ah ilaa dugsiga hoose 2 galaas 3 galaas oo kamid ah miyaan ku soo qaatay sax malcaamadaydi hore asaasiga ahayd nin miyi la haddana tagabaan oo nin dhaqan baan kullay soo qaadnaa inaan ahay sax magaaladan wax badan ka bartay kullay niyo haddaan isbarbar dhigo dibadhow waxaan aaminsanayaa dadka waaweyn inta ka nool iyo inta jiilkan hadda bilaabmo inay turjumaan oo kala baahanayaanba sax sababtoo ah maalin maalmaha kamid ah ayaanu magaalada Hargeysa jooga ayaan xaafad meeyra booqday markaa xilli duhur bay ahayd telefishin baan waxaan daawanay 2 nin oo adoo daahan midna ilaa 30 jir yahay midna ilaa adoo 18 ilaa adoo meelaha u dhaxay adoo 2 nin oo waaweyn hees qaraamiya bankii TV ana wadwaday sax marka hees cabdi abdi talqado yaxyaxiyo xishoodu baay guyuru sadayo heesta walaahda yahayo tirada wadana raxday halka marka heestu marayso ayaan waxaan arkay aad ugu xun yahay doonayaan markii horena raab iyo waxba ku jiray inaan ka qaado sharaf bay maran bay doonayeen marka waan arkay inay doonayaan qaraanka laga fahmayo waxa noocaas af kale aan la garanayn bay ku hadleen oo af dadkii dhintay lahaayeen dadna waxaan weydiiyay kii labada walaal weydiiyaan ku dhiyay actor xiriyaha u yagleela waxa looga jeedo wala actor waan garanayaa waxaan film daawanaa actor leeyahay buu xarana waa tan riyaal lagu xareeyay laakiin yaadaamni ma garanayo buu haddaan marka la isleeyahay la yiraahdo filmaantii waxa sadaan taahin marka ma xaaladda noocaas ah kulli dadka inta marayeen in afkana cidda soo noolan karta ama ka qayb qaadan karta waa inaga bal heesta ugu horeysa ee balada soonayso hadii aad ku luqayso halkiisii wadigaysa ama wad ku dhawaanaysaa waloo soo qada heesta wallahi ma dhigi kara halkeed kulli way adagtay deena xoogaa wad ku yara فنان ما هي لكن وان ير واسكا هسيسا صح marka maxamed nooga heesiisa kulay ma laba keeni karo doonin oo dahabi yar baa laakiin se anigu kulay heesahan baan qaada marka waxaan heesiisa u jecelay laba inta badan laba heesood صح hees waxay leeyahay mudantii haweenkay
yes kalo adiguna ganka filaleeya wangaran lahaa talo haddii aan korfeeyey markan geediga raray sahli ku guuray adna mad garaabine gantaalihii jacaylka garbahayga taagtayo iga goo kuleeyaad igu gees maraysa kolse hadiyaad gardii tahay adiguna ganka filo aniguna gayaankayban midkaa guursan doonaa guushiya wanaagay midna garabsan waydayo adageeska dhaafe geedkii aan beernay midhihiisa guranlay goortay bislaada adigaan ka guranino gagiboorka duuliyo sii jooga galinta kolse hadiyaad gardii tahay adiguna ganka filo aniguna gayaankayban midkaa guursan doonaa aniguna gayaankayban midka guursan doonaa shay maradaar oo ka mid ah Allah u naxariisto oo ka mid ah fanaaniintii fanka meel wacan kaga jiray sax bal hees ka mid ah heesiisi noo yar soo gartaa sida meel tigadlo tusku ku horo dunyadu ku taranto toddobaad xareedii togaguna rugmanayaan kuu soo tusmeeye tikaleeyahayde togashada indhaan nurka uu taraysay qalbiga ku tabayey qalbiga ku tabayey kole wadheerteesu intaasaynu ku xusi karnaa sax halkan waxaan uga faa'iidaysan lacaawa inaad bal talo iyo tusaale siiso waxaa jira dhalinyaro badan oo reer Somaliland sax oo waddankeenu jaarkana Soomaaliya marka uu qarax ka dhaco aflagaadiisa sax amaba waxyaabaan afkooda u roonayn tirtiraada sax diinta islaamka waxay noo sheegaysaa qofkii islaama dhibtiisa haddii qof islaam ku farxo waxay taasi wax ka dhigantay inuu yahay qof munaafiqa bal dhalinyarta ku faraxda qaraxa Muqdisho ka dhaca bal maxaad kula talin lahayd soo jeedin lahayd horta walaalo kulley Somaliland iyo Soomaaliya si sharciga caalamiga marka la eego hal dalbaynay sax laakiin naga isu naqaano dawlad gaar ah sax say doonto waxa inuu siyaasad dhex gelimayno oo wixii ayinba dad walaalo ah baynu nay haddii ilaahay uu magaranaysaa inoo qorayna waynu kala bixi haddii ilaahay inoo sukaan qorayna waynu isku noqon ilaahay baana sida khayr roonog insha Allah mar walba waxaynu jecelahay wixii Soomaali horta anigu waxaan aad u nacabahay wax allaala ama qabiil ha ahaado ama calan ha ahaado ama qof shakhsi ha ahaado wixii dadka Soomaaliyeed kala gaxaynay mid kasta joogan aad baan u karaahaysta wax kasta oo isu jiidid Soomaaliyeed ka shaqeeyana waan jecelahay waayo Soomaali baan ilaahay baan Soomaali ka dhigay Soomaali meel kasta uu joogo waxyaabaha aan aad ka karaahaysta wax kamid ah dad warbaahinta ka hadlo hadii jeer yiraahdo maartay dhulka Soomaalidu degto oo hadal jaban ama hadal aad Soomaaliso aad arkaysa inaan muddo Soomaaliya wuxuu meel dhulka isagu lahay sax وفي القراءة عمل بكرة سوما دكتور إمك صومالي إيران دموي دكتور من الحين لكن أرجع الصومالي ده أنا وحتما يراهدو ميراهن أي نجاح يستان دولة كلا شيء ما يراهدو dalka saas Ethiopia ama meeshaas dawladda deegaanka kale dhulka Soomaalida baan adeegsaday waa dhul Soomaalida inagana ilaahay inagu beeray inagana xaq u leh ama inagu aynu kala sheegano xuduudo kala samaysan inagu dhexdeen ama aynu isku waafaqan hal meel isku raacnay waa dhulkeedni inagana leh dhulkana hadiya jeer waxyaabaha aad waxa la yiraahdo dhulka looma aamino inuu dhaxal awoodo
laakiin waxa la aaminaa inuu yahay dayn aad ka haysato ilmaha dhabarkaaga ku jira هذا استوى دحل uga dhaxalka uga ku tasarrufaysa way wixii qof wali waxa abi ka dhaxayn ku xabka ma hay laakiin waxa dayn ku hayso ilmaha dhabarkaaga ku jira dad ka shaqeynaysa wada ilaalinaysa wada dhaqaysa moogti marka dhulkaas waa daynta aynu ka haysano dadka dhalan doona innaga ale si kasta ahaatee siyaasadda inuu dhex galmay ilaahay Soomaali sidoo khayrona ka dhiyeelo insha Allah aanu soo laabto dhalinyarada anigu waxaan ka fikirnaa dhalinyarada man cidi dhalin way ka baxeen baan saamar markaa wallahi beenama waayo qof muslima oo Soomaaliya oo walaalkiya oo dhibaataysan ku qoslayo mid reelka waaweyn oo doqona kan waa anigu cidna kama hamrado sax oo magaca buleey magaciisa ma garanayo qofka waxa si cid baan geed ka baxay baan malay way cid dhalin ma malaynay qofka noocaas saa u hadlaya sax ee hooyo meel wax ku ganacsanaysa muus iibinaysay oo qarax dhakada laga saaray oo jirkeedii ciidda la kala garan waayay dhimashada kala sharafro qofka ku farxaya maantana waa qarxaan team uu samaystay waxaan iyadana aad u cambaaraynaya ama aad u dhaleecaynaya iyadana jirtay in dawladdu ay dadka noocaas waxna ka qaban weyday isla markaana bajada loo qoray xaflada loo qabtay lagu dhiirigeliyay waana wax islaamnimada iyo Soomaalinimada iyo bini'aadantinimada ka baxsan ilaahay khayrkayna gaarsiin dawladdeena oo nasteexayna waxaan leenahay wixii xumaanna la iska qabto dhalinyarada noocaas inaga inagu tahay waxaan arkay fanaan oo yiri Soomaaliya haddii ay ictiraafka iyo nasiin dhibaatada ka bixi macnaheedu waxay naga soo qaaday inuu caawinay dad wax caawiniyo naga soo qaaday sax dad badan inaga nagu riyaaqeen way ku raacsanaan waxyaabo noocaas inaga ina ceebaynaya hal inaga qabto intii la sii dhiirigelin lahaa hal inaga qabto ilaahay Soomaalina sidii khayr ku jiro ilaahay ku soo tabaalo waa isku dhiig isku dhaqan isku af isku diin bayna ilaahay sidii roon baan halkan waxaan kala talinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba dhalinyarta mar kastaba aflagaadaysa waddankeena shaarkana ee Soomaaliya horta wallahi waa runtaayo mararka qaar waxaad soconaysaa waxaan miyaan guriga ka soo kicinba waa 24 hour qofkii mar hadii uu qalad ka dhaco oo bilaadan qofku uu qadami karaa laakiin qof mar iyo mar labaad mar saddexaad mar dameerka hadduu cid dhibo ama neefka xoolaha ay lagu sitay ay cid yahay qabsata way ka xishootaa in beena ma wallahi leeyahay wixii dhibtaa geystay qof noolo bilaadan oo meel ka soo kacayo oo dad dhaleen waxa ku hadlay maalin walba arkayaan u jeedaan anigu ma yagaan isla cuquba idin karimayso ما موجي إلهي سيد خيره إلهي حق ناس يبان لنا إلهي حق ناس كوا أسنا لقى نوم مثلان مر لبادي مر سدحادي مر أفراد بالكانوا قاعدين لنا نوم مثلان والله بالله تلاي إلهي نا ودن كاكا قبتو دس كاكا قبتو مسلم نو بشيء إنكار قف ولالك يودي باتي سن كفر حياة كل البرنامج كله هذا ونسكسو قبل دون إن شاء الله بل هيستو قدام بيسال سحابته قبل له بل نصو غلط كل نو مركز يقول هي ساس وقع مرت ويجا باهان وانقرن ويا مكت باهان لكن س سين حال سلام تبع متكمل لنا سوق ونيا الدنيا ذا ندوفين كده نقول كيوي كوسا الدنيا ذا ندوفين كده نقول كيوي نندرجيو ندور قضي تالي لالي لالي لان عندي في تديجيو لابد بحولي كما دماتي قفوا لبا وحيدي بي تالي لالي لالي لان دافور كي دالالي لالي لان كتالي أنا داوعي جعلي بكاستان لدليلياي كل كفران من ليس كان تاسر كحسنا الدنيا ده اللي فيه كيف تقولوا فيه وتاي صاحبي البرنامج كاين تاسين كسو غبغبين دونا ان شاء الله لو ان كوير لابته waxa jirta dad badan oo Baarud family oo daawada waadana subscribe taan dhac ku siinay وان إن بدن موي سومالي لماذا واحد كتانو قرن معي حلا أصحاب بدن وكحولان بيروت فاميلي عندنا حلماما حلا فضلا هاي حلمامنا سبسكرايب تا لايك تا شير تا انتبهوا حنا تايدين رجلين برنامج كمان تاسم انتهى حرين نصينا عشان يطلع البرقسية كسارة أشياء عينو يرمسن يربون لسنا وحير
noo saar way saareen maad saarin adigu saar waka wax ku dhigaya maalaygtana raaci sheerta magaranaysa commentigana inagu hurguf ha maalin dambe isu tilmaamayna mar intaas wax la isu tilmaamama waa gobtad kale maalin soo wadi lowde in fadhac ku si kastaba aad asxaabta qaaliga inta aysan ku soo gabagabeynayna barnaamijka. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.